دائما رمها security كنا وحكا قانو وحويان محابيستا كحولا مقارد الله سعانود عيدا كينا كتر سني عليس وين بيلو هيا طلحان يد ضحان يد دولة هامبا مالك استورك سحرية هي وامد نقول بورا لهان يد ميرهان أي نوع حرام هاي محابيستاسي هبين يا مالك بوين الله صهر ليانو waxayna leeyihiin maxaa nooga raagteen maxaa nooga maqantahay maxaa noogu yimi weydii hadalka alle aween la soo hadlayaan mid telefoonada ma aha qulubteena iyo laabteena la soo hadlayaan hasa ahaatee waxa iyaguna inala hadlaya oo iyana ay dareemayna hadalkooda inuu maqlaynaa intaa ka badan oo dhimatay oo qadiyada ay xulan yihiin imika u dhintay iyo ka soo badan oo ka soo horeysay walaalayaal waxaan ognahay maxaabiistu ma aha dad ka shiloo haystay iyo deyn mana aha dhalinyaro tahriib ah oo tahriib u xidhan waa geesiyaal difaaca qarankooda iyo jiritaanka ummadooda iyo calankooda u xidhan iyaga kol haddii maanta ay xidhan yihiin wax xili ma saara innagaa xilina saaran yahay maxaayna saaran laba xil bayna saaran inaynu soo dayno oo maxaabiista jeelka ka soo dayna waa waajib nasaaran waa waajib qaynuuniya waa waajib diiniya waa waajib dawladnimo ah waa waajib dadnimo ah oo damiirkeenu nafray waxa kaloo ina saaran qadiyada waxa ragga xidhan inaa soo daysaana waa idin saaran yihiin ilaa qarannimada iyo qadiyada ilaalisaana waa idin saaran tahay marxaladaynu hadal ku geli karnana ma joogno inaad raggiina soo dayso qarannimadiina ilaaliso maanta waxaan koodhan lahaa ciidan beeladadiina waad qaramayso militarigaagana dhiso dadkaaguna waa ku ogol yahay boosiisha ragannimada markaynu soo taagno ee jabhadda aynu cidhiidhi gelinno raggeenna si ragannimo ah aanu soo furanno laakiin inagoo maanta marxalad adag taagan hadalku waxaan aaminsanahay maxaabiista lagu soo furanaya meel adag buu inagaga jiraa waayo kaadanaynu miiska la tagno ma hayno maxaabiistiina waxaa loo haystaa in qarannimadeenna lagu dhafoortaabto si kaacad haddii hadalka loo sheego waxayna leeyihiin dee qarannimadiinni maxaabiista ku bedesha ama beelo noqda ama la aqoonsada midda yeeli mayno raggan xidhani dee qarannimo u xidhan iyo tahriib ma xidhna qadiyadii ka badani ay u dhimatay ee ka sii badani ka sii horreysay maanta inaynu adkaynin mooyaane ka leexleexasho ma jirto markaa waxaan leeyahay hadalka waan ku dheeraaday inaynu ragga soo furana way nagu waajib inaynu qarannimada ilaalinaana way nagu waajib laakiin arrintaasi maxay ku jirtaa hadalkii uu yidhi abwaan dallaayad bay ku jirtaa ee ahaa galool mudhay hangoo lagu gilgilay sooma goyn karee gabse wuxuu yidhaahdaa markaad gudubna fuushaayo kol hadday gamuurnaato oo la isgarmarin waayo waa gacanta midigu waxay gabi wayda raggaa maanta gacanta